sidee ku soo jiidan kartaa qof aad jeceshahay oo ka sii jeeda? dad badan ayaa isku taxaluujiya in ay kasbadaan qalbiga qofka ay jecel yihiin iyagoo aan eegin marxaladaha uu ku habboon ee qofka lagu tashkiilin karo ama lagu soo jiidan karo. waxayna la kulmaan inta badan guuldarro, waxaana ugu wacan xilliyada ay soo gudbinayaan dareenkooda jacayl oo aan munaasab ahayn. haddaba maanta waxaan idin wadaa qaabab fudud oo sahlan oo qofka ku beeri karto markaasi jacayl. wicitaanka qofka xilliga uu seexan rabo, isku day inaad noqoto qofka ugu dambeeya ee la hadla qofka aad doonaysid. bini'aadamka ayaa ka siman in xilliga hurdada ka hor qofku qalbigiisu fikiro, waxauna ka fikiraa hadalladii ugu dambeeyay ee idin dhex maray. qofka ayaa bilaaba inuu fikir badan ayaa marka dambe isku beddela saameyn jacayl, waana waxa la hubo in aad kasban doonto qalbiga qofka. ku dadaal in aad noqoto qofka ugu dambeeya ee la hadla. xilliga firaaqada ha isku dayin inaad la kulanto qofka ama inaad kula kulanto qofka meel buuq badan ama dadku ay ku badan yihiin. isku day inaad qofka kula kulanto meel cidlo ah ama jawi degan, labadiina idin saamaxaysa in aad isdhaafsataan aragti. jawiga cidlada ah waxa uu ka qayb qaadanayaa in qofku qalbigiisa gaarsiiso dareenka, halka jawiga buuqa sita uu kaa nusqaamin doono in aad gudbiso dareenkaaga. ha baranin marka hore asxaabtiisa ama asxaabteeda. markii aad doonayso inaad qof barato, ha isku murjinin inaad barato marka hore qofka aad doonayso asxaabtiisa. waxaa imaan kara shaki ama marka qofka inuu kaa baqo wixii idin dhex maray in uu ogaado asxaabtiisa. ha ku degdegin barashada asxaabtiisa, iska sugo ilaa iyada ama isaga uu ku baro. barashada ayaa noqonaysaa caqabad iyo xitaa in isaga oo ku raba laga yaabay in uu cabsi qabo mid ka mid a asxaabtiisa. u gurmo xilliyada dhibaatada jirta. isku day in aad noqoto qof la garab taagan heel iyo hoob. xilliyada ay jiraan murugada iyo dhibaatooyinka, tusi in uu cidlo ahayn. qofka loo gurmado ayaa ku fikiraya wanaagga aad samaysay, taas markii aad ka heli doonto qalbi jinacsanaan iyo aragti deggan, taasoo marka dambe suurtagal ka dhigta inuu jacaylkaagii noqdo meel mar.